بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ إلهي خير فربضان هسيو محاضرة قيمة بدن نحن دمانتين إلهي نقوم فيه سبحانه وتعالى. قيبت سؤالها يعني قلينا سؤالها أدبي فربضين لكن أنت عنك قارنون بان الشيخ ويديننا بارك الله فيكم. سؤال شو أبوه رسول الشيخ وحي لذا هاي إسلام بحسو قريسا عرور فربضان بان لي هاي قار وينادين جامعة كبحين dhammaan way caafimaad qabaan laakiin hal gabar oo yar baa waxay ku dhalatay xanuun bay ku dhalatay marka plot ama dhul boos aan lahaa baan siibay tirayadii kubi kale carruurtii kalena way og yihiin bal ayaga ayaa ka qayb qaadanaya dhismihiisa iyo maarta habeentiisa marka maadaama aan kuligooda u samin ma wax dambi baa iga soo gaareen waa su'aal daba socoto muxaadaradii habeen hore ee cadaaladda khusaysan. بسم الله الحمد لله هذه عرضك الرالي كيهين أما الماء حلصينا يا ظروف قار وليه لقوا تحقلين يقدم لها عند أردو وحلو دون يا وحسين تلو يري وهنا كم مقنن عرضنا كلا على سنيسو أما عضو كلا حنيسو أما متكود واحد إرادة ويكوا كلنا مدينين أتوه حق لنا يس أما أتسينيسو markay guriga ba joogaan taban xilliga waxbarashada ay marayaan isku baahin maaha wiiliga gabar haday yihiin waxa labiskiya loo gaday ay u baahan yihiin isku nooc maaha hadii qaar xanuunsan yahay qaarna caafimaad qabana de isku mid maaha mar haday waxay isdheer yihiin duruuftii ay keento iyo waxay iyagu raalli ka noqdaan sida ay u sheegtay hooyadu hadii ay tahay intaas dhibaato ma laha kaliya waxaadun dareensiisa in qofkan xanuunsan iyaga caawin uga baahan yahay intana ay raalli ka noqdaan oo cafiyaan inta hadii aad hesho waxa laga cararayo waa cuqdad inay qaadaan kadibna waalidnimadii iyo baarinimadii aad ku lahayd ay idinku sinaan waayaan qofka hadduu dareemo inaad qof uga eexatay de cuqdada iyo xumaatu ku qaadayo baarinimadii waalidnimadii ay jabnaantii ma yeeshaan billahi tawfiiq. سؤال شاكتو حليضة هاي وسؤال فربضان أو خصيات إن عم ميك أب كي يسقرحين تدو مركا سؤالها سوي بدين لكن خلاصة ذو حواي داوين كانوا سكوا عديو دين الإسلام كم هيك قبتها ميك أب ككلا عادي أو عن عدين تكوجرين سجع حدودي سمحتها تين لك يا لوجلي. الحمد لله مسألة رقي الدمر بدي شريعة وي فرتي مسألة تجمل كي إلا يسقرحيه شريعة وي فرتي جودهان نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يري إن الله جميل يحب الجمال مركي لي رسول كلاه يو كبير كمركو كاه الله يباني يري رسول كلاه يو حان شعل هاي كواه يقولون في عينه قرح سيهين دارك يقولون في عينه قرح سيه هاي مكبير كي كمته كاسو حيري مايا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس كبر وحال إلى هذا حق ولا ديده يدتك ولا حقر ولا يسال إلى هذا أمل ليده صادرت القفكو نوع سلام ضد وحوغي بصاصي كم موقتينا لكن باهيكو كلفتعين تشيري نوع عنانتي نباوي من مالين نركي سيو تميه سيو هذا يوم موقته كاسو يحيل حوالي ملاذة كاسو يحيل حوالي النوع والبان له قيل بان له الله بان له وحل بان له مال العق بان له أرضه يسوها قاتش كدي وحنا ويقول إن الله يحب إلهي الشعري هدونك هدو النعمة أن يرى أثر نعمته عليه نعمة ذي كم موقت يسوون كو كبرين حد قد بينين النعمة ذي الشكر يدي وكم موقضه صدرت بمناسبات بدنا النبي عليه السلام وأقبلي إن رجار اللوجة تعيده مناسبة هي وفدية زيارات كيو وقف مناسبة جارنا يسقرحي تاسوا مبدأ جود وشرع جانو سجود بأفري تذكرنا يسقرحيان وحي خلق إلهي بدلية وحي لبط المعمود يشنا أما صدحنا إرادة يشنا شرع وواكو حرام وحي يش عبورك إلهي وحلقة بدليه وإله وكل ولا يغيرون خلق الله
khalqi ilaahay bedelayaan. ilkaha waagi hore waa la qorqori jiray, wax dhuudhuuban oo feenfeenan baa laga dhigi jiray, qurux baana laga raadin jiray. nabigu markuu xaaraantinimeynayey wakay walmutafallijaati lilxusn almugayiraati khalqa allaahi, abuurka ilaahay bedelaya. waxaa kaloo reeban naftan iyo jirku waa ammaano, wixii tacadiya xadguduba lama ogola. saan nafta in la dila loo ogolayn, caqligana maandooriye in lagu ciyaaro aan loo ogolayn, jirkana xubno in la jarjara aan loo ogolayn, sun iyo waxyaabo khatara in la isticmaalana lama ogola. wixii dhib caafimaad leh ee khatar geysanayana isna lama ogola. rag iyo dumarna isaga mid weeye. waxaa saddexaadan la ogolayn wixii samaynaya musuqmaasuq iyo been noqonaya, oo dad lagu khiyaamayo, oo si aan jirin loogu sheegayo, oo masaladu musuqmaasuq iyo isdabamaris ay tahay. dee qishigu waa xaaraam, man qashanaa falaysa mina, waa kii nabigu sal intaa wixii aan ahayn filjumlati iyo guud ahaan iyo duuduub asal ahaan isqurxintu way bannaan tahay. saddexdaa midna haddayna gelin. wixii caafimaada waxu dhimaya dee waxaan wuu dhimaya anuu ma dhihi karo, dhakhtar baa la weydiin, iyaga ahlu dikri ka ah. wixii khiyaano ahna qofkay u noqonaysaa iyo labada qof ay khusayso. qofkuna inuu khiyaano u sameeya ma bannaana, rag iyo dumartoona. hadhowna hadday soo baxdaan axkaam sharciga ka dhalanayso, oo haddiiba neef ariyo xooloo la soo gaaxiyo wuu caano badan yahay dadka lagu khiyaamay, sharcigu axkaam iyo khiyaaraad ka furay. qof bini aadam oo qof bini aadama nolol khiyaamay, iyadana khiyaaraad baa sharciga ka furan oo ka dhasho axkaama. de hadda su-aashuna ma aha halkana faahfaahinteedu ma xambaari karto. waxa soo harayna wixii khalqi bedelitaan ahna culimmadu waa isku qabteen maxaa bedelitaan ah. laba qaybood, waxna waa wixii daa'im ee joogta ah, waxna waa wixii ku meel gaara. wixii daa'im ee joogta ah lama ogolo, tan ilkaha tusaale u ah, tan ilkaha la qorqorayay baa tusaale ah. wixii joogta ah lama ogola. wixii aan joogto ahayne intuu wax bedelo wakhti yar jiraya oo haddana isbedel soo noqonaya, haddana isbedelayaay, guud ahaan waa la ogol yahay. wixii aan sharcigu si gaara u diidin in magacaabin, si timo lagu daray iyo waxyaabaha lamidka ahee axaadiidu ka sheekeeyeen. wixii laakiin aan joogto ahayn, waxyaabaha inta asalku sharcigu waa ogol yahay. waxaa ka mid a timahan la cilaamayo, waxaa ka mid a iyagoo jilcisa la marinayo, ama dee sida waddankan aan joogna ka jirta la gubayo la feereynayo. timahan la gubo ee la feereeyo, carabiga tamliis shacr bee lagu yidhaahdaa, baa ka mid a. muddo kadib kuwan madoobeeye culummada bannaysay baa ka mid a in la madoobeyn karo. dabcan dee haddaad madoobayso maalin iyo si dhowr maalmood kadib hoos buu ka soo caddaani. haddaad cilaan ku guduudisay hoos buu ka soo caddaani, isagaa is soo beddelaya. guud ahaan saa darteed waxyaabahan ama timo la marinayo ay dib ka soo baxayaan, ama karaamyada iyo meekabyada inta la ismariyo iska baaba'ayaay, cilaankii baabkiisii wey, haddayna dhib caafimaad yeelanin. hadduu jiro dee qofka midabkiisii, waxaa kaloo ka mid ah isqurxinta. wax allaalay masalada iscadaynta, ama kareem ha la isticmaalo, ama kiniin ha la isticmaalo, ama wax dambeoo soo bixi doona ha la isticmaalo. ilaa noloshu way isbedelaysaa, maalba qaab cusub baa soo baxaye. jirka midabka cadayntiisu ma bannaan tahay? masalada hadda soo baxda oo khilaaf badan ka jira waay. waxa la isu khilaafayo waa wixii aan dhib caafimaad lahayn. dhib caafimaad haddii uu yeesho ma bannaana, ama ha iscadayn ha noqoto, ama ismadoobeyn ha noqoto, ama isjaallayn ha noqoto. wixii la isticmaalaya dhib caafimaad leh, inuu midab yahay xaaraanu ma aha, inuu dhib caafimaad leeyahay buu xaaraan u yahay. taa lagama hadlayo. waxa la isku hayaay waa haddii dhib caafimaad uusan lahayn, amaba ay timaado. haddii aan ka soo qaadno kuwa hadda joogoo dhan dhib caafimaad inay leeyihiin, berri haddii la helo kuwa aan side effect caafimaadoo weyn lahayn, hadday berri yimaadaan. masale khilaaf badan ka jira culimmadoo aad ay u kala aragti duwan yihin wey. aniga waxaa ila saxsan ilaa iyo hadda qowlka bannaynaya, waayo asalka ibaaxadii cibaadaad ma ahane,
haddayna dararna lahayn nascadoo xaaraantinimeynayana jirin usuul ay raaci kartana ay jirto usuusha ibaaxada aniga iila dhow wabillahi towfiiq. sheekh jazaak allahu khayr. su-aasha kale sheekh gabadh baa waxay leedahay soon hore iyadoo liigu leeyahay baa soonkii kale soo galay marka kadibna isla asagiina waa lagu yeeshay qaar baa looga yeeshay marka maxay samaynaysaa? alxamdu lilah way qallaynaysaa maadaama soonkan dambe ay tiri qayb baa laygu yeeshay inay soomi kartaa halkaa ka muuqata. in qayb gabadha lagu yeeshana waa dabiici oo caadadan billaha ahi inta badan dee kuma soo aadaysa inay bilowga dhammaadka shacbaan ku dhacdo, bilowga shawaalna ku dhacda dee kuma soo aadayso. sida qaalibka maalmo ramadaanka ka mid a bay caadadii bilahaydii iyo dowradii shahriga ayd soo maraysaa, maalmaa lagu yeelanaya. marka waxaa ka muuqata maalmo isqayb bay soontay, way soomi kartaa. marka gabdhuhu marka waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaa aada u badan soonkan uur baan lahaa, soonka dambena waa nuujinayey. arrintaasi inta badan cudurdaar maaha, sababtoo ah qaduhu inaad isku xijisiisa qasab maaha. bishii ramadaan hadday dhammaatay, ramadaankii kale imise bilood baa ka sokaysa? 11 bilood. 11 bilood bishii haddaad 3 maalmood ka soonto 10 bilood bay 30kii beri kaaga dhammaataa soonku hadduu 30 ahaa. 10kii beriba maalin haddaad soonto, soonkii hadday gabadhu qayb soontay sanadkan dhan ee soo socda maalmaha yar awood yeelatana dhowr maalmood way isku xijisiin kartaa. markay usbuuc joogtabana hal maalin way soomi kartaa. marka gabdhuhu iyagoo awooda inta badan markaan weydiino aan idhaahno okay 10kii beri maalin ma soomi kartaa? haa waan awoodaa. usbuucii maalin ma soomi kartaa? haa waan awoodaa. ayib soonkaad leedahay ma qadayn karo ma awooda maxay tahay? inta badan 90% ka badan waad qadayn kartaan, laakiin qaar baa waxay moodayaan inay laga rabo inay bishii dhan isku xijisiiso ama labada usbuuc ee lagu leeyahay isku xijisiiso. waxba qasab maaha. xogay markaad joogtaba hal maalin ku tuur, xogay markaad joogtaba maalin ku tuur, xogay markaad joogta 2 maalmood ku tuur. haddaad tirada inay kaa lunta ka baqayso, meeshaa buug intaad dhigato ku dhejisa kalandhar soo dhejiso sanadka ah, maalinkaad soontaba sax, hadhow intaad saxday tiri si aad u xisaabto waad garan karaysaa. laakiin u xisaabi karee gabadhii u tiri kaas waxaan ku idhi biilka bishii aad qaadato iyo dukaanku lacagtuu kugu leeyahay intaad wax ku soo gadatay sooma xisaabtid? markaasay tiri haa lacagta waa xisaabi taqaanaa ee soonkiisa u xisaabi weydaan ku idhi soonkaa waa 30 beriyahe 30na ma xisaabi karo, bil walbana kumayaal kalaan xisaabayaa, dee waxa sax maaha. haddaad xisaabtii ma xasuusan karo, kalandarka soo qaado, maalinkaad soontaba waan soomay tig kasi calaamadu samayso. imisaad maraysaa markaad tiraahdo warqadii hore soo bixiyo 1 2 3 4 5 soo dheh, qabaad u tirisa waayi maysid. buug baad ku qoran kartaa, siyaabo kala duwan baad u tirin kartaa. marka gabdhuhu soonkaa ha qadaysa gabadhu, in yari yarna ha taanayso oo ha halahalayso. billahi towfiiq. jazaak allahu khayr sheekh. isla su-aal soonka khusaysa haddana oo dhowr su-aal isku nooc ah. waxay leeyihiin gabar qaarkood waxay leeyihiin anigoo 13 jir ah uu dhiigga ugu dhacay, laakiin labadii soon ee ku xigtay ma soomin, gadaal baa ka bilowday. midna waxay leedahay 9 jir. marka bimacnaa soonkii markii ay bilowday intii ka horreysay aanan soomin maxay ku samaynaysaa? alxamdu lilah. طبعا masalada waxaa saameynaya inay ogeyd waajib in lagu leeyahay iyo inayn ogeyn. in waajib lagu lahaa inay ogeydna dee ama waalidkiisu wax u baro ama dugsiyadii iyo meelihii la dhigan jiray diin badan baa lagu bartaa. oo laga yaabaa waqtiyo hore inay jirtay iyo hooyooyinka waaweyn aanay soo gaarin xilligii wax la isbari jiray ama wax la bari jiray ayna soo gaarin. haddii ay ogeyd gabadhu in soon lagu leeyahay asaanay soomin, qadihiisii baa laga rabaa. sidaan hadda soo sheegna ha iska yaryarayso. haddaynan ogeynba soon waajib inuu ku yahayna waxba laguma laha. gaabintii ay ogaansha la-aanta ay ka gaabisay waa dembi kaleoo istikfaar u baahan ilahay dembi dhaafo weydiisato.
qofkii aan ogeyn bicibaadadan waajib inay ku taho in lagu leeyahay wakhtiga uu ogaadaa waajibku ka bilowdaa waajibka iyo taxriimkuna cilmiga iyo ogaanshihii iyo garashada ku xiran yahay wabilaahi towfiiq sheekh isla su-aal ayadana soonka khusayso gabar baa waxay leedahay hooyaday oo dhimatay ayaa soon lagu lahaa soonkii inaan ka soomaan doonayaa si aan uga soomaa khaasatan haddii soonkii intuu ah aanan garanaynin alxamdu lilah waalidka dhintay soonkii lagu lahaa midna waa garashada midna waa ka guditaanka aan ka guditaanka u horeeye laba qaab baa habboon baa bannaan inaad kaga guddo inaad ka soonto ood adigu soonto soon aad niyoonaysa waalidka inaad ka soomayso xadiidkii caaisha radi allahu canha wa ardaaha nabigeenna waa ka yidhi sal slam man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyu qofkii dhintay isagoo soon lagu leeyahay weligiisii xigtadiisaa ka soomaysa waxaa labaad oo bannaan inaadan soomin aad cunno ka bixiso maalintiiba miskiin aad ka qoodiso waxaanay ka dhigan tahay qofku isaga oo nool baa markuu awoodi waayo inuu cunno miskiin qoodiya loo ogolaa hadduu dhintayna hadday ka sii daran tahay awood la-aantu markaasuuba noolaaye soonuu qof nool awoodi waayo dee qof dhintay ma awoodo wixii markii uu waxaa kulminaya labada xaaladood inuu caajiz qof aan awoodin soon yahay mar hadduunaan awoodin beddelka soonka cunno iyo raashin baa geli kara amaa qadarka garashadiisa dee haddii aad qiyaasi kartana waad qiyaasi haddii kalena intaad isleedaheed awooddo unbaad ka soomi dee wixii waajib ahaa haddaad dhammaystirtana wuu ka gudi haddii aad dhaafisana niyadii aad niyootay insha allahu ajir buu ka heliyo soon tatawuco iyo sunno ood ka soontay buu noqon wabilaahi towfiiq jasaaka allahu khayr sheekh su-aasha xigta waxay leedahay waxaan arkay dumar ku ducaysta ilaahayow maalinta aakhira nebi maxamed ii guuri arrintaas ayada diinta maxay ka qabtaa alxamdu lilah dabcan dee damaca sidaasi waa damac qaali oo wanaagsan qofka ilaahay jannada inuu geeyo maqaam sarena geeyo laakiin arrintaasina waa sida guud mabda'a guud ee qofkan ku kallifaya marka laga eego laakiin waxaad ilaahay baryaysaay waxaa jira alictidaa fi ducaa ducada ku xadgudubkeeda lama ogola nabiguna waa dihi jir sal slam lidaalika saxaabada nin ka mid oo nabiga xadiidka ducada in aan lagu xadgudbin ka wariyey baa wiilkii soo ducaysanayuu soo maray oo ilaahay oo jannada markaan galo daarta cad ee dhinaca midig ku taalla baan ku weydiisanayaa markaasuu wuxuu yaa bunay ilaahay jannada inuu ku geeyo warayso weydiiso naartana uu kaa badbaadiyo laakiin jannada meeshaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa iga sii gee uma baahna keliya firdowsa laclaa fi ljannati jannada meel sare iga gee qaybteeda qiimaha badan igee laakiin maanta haddaad tiraahdo waan fariisan guri sidaa u eg oo midabkaa leh oo intaasoo dabaqa oo intaasoo qola ictidaa fi ducaa wey looma baahna waxa mustaxiilka aan suuragalka ahayn inaad weydiisato ilaahayna ictidaa fi ducaa waaye darajada janno wasiilo la yihahdaa ugu sarraysa hal qof baa gelaya qofkaana waa nabi maxamed sal ly slam ilaahu darajada wasiila isii lama ogola waayo hal baa loogu talagalay halkaana waa nabi maxamed sal slam adiga lagu siin maayo waqti dhumis weeye ictidaa fi ducaa wey ictidaa fi ducaa de wax xaaraanahi iyo dulmi inaad weydiisato tanna waa min jinsi اlictidaa'i fi ducaa'i waay nabigu alay slam way xadidan yihiin ummahaat lmuminiinkuna way xadidan yihiin zawjaadkiisuna waa xadidan yihiin cadad lagu dari maaha marka min baab اlictidaa fi ducaa weeye niyada wanaagsan khayr allah ha lakaa siiyo laakiin aadaabu ducaana barashadeeda ha lagu daro ha lagu dadaalo waayo salaadii iyo suxuurtii iyo waqti kasta ilahay baan baryaynaa aadaabtii baryadana inaan baranno iyo saan u barya lahayna ilahay noo fududay aan barano bilahi towfiiq jazaaka allahu khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay ninkayga xaas kale ayuu leeyahay marka waxaan ka codsaday inaan safar aado safarkiina uu iga ogolaaday markii safarkii aan ka soo laabto waxaan ku yidhi intii aan maqnaa maalmihii aan maqnaa habeenadeeda halii gudo marka asagiina wuu diiday wuxuu yidhi safarka adaa aaday marka xisaabtaas waa shaqo ku taalon garad
ayib alxamdu lilah طبعا masaladani sidan oo kale inay dhacda dee wax cusub ma aha oo dabiicada noloshu qofku uu safraa gabadhuna dan way yeelan kartaa culimmaduna waa horay ka hadleen masalada gabadhu hadday safarto intay safarta iyo ku maqnayd beddelkeedii ma yeelanaysaa mise yeelan mayso ogow markii safarta la aado ee la kala maqan yahay waxaa meesha ku lumaya gabadha xaqeedii keliya ma ahane isaga laftiisa kiisii iyada uu ku lahaa waa maqan yahay isaga laftiisa kiisii uu lahaa waa maqan yahay kadib see loo goormaa la yeelanayaa waxay culimmadeennu ku soo ururiyaan safarta yaa iska lahaa haddii isagu danta uu lahaa oo iyada uu diray hawl iyo danuu isagu leeyahay bay u soo qabanaysay oo iyada uu u diray oo walaalay hawshaa aad buu yidhi intay maqnayd way leedahay way dantiisay ku maqnayd hadday iyadu teeda u baxday oy fasax ka qaadatayna danteeday aadayee beddel iyo guditaan ma leh marka maxaad ku maqnayd wey haddii isaga dantiisa aad ku maqnayd oo isagoo ku dirsadayna inaad weydo isagaa sabab u ahaa isagaana keenay dee weli gudaa laga doonayaa marka qaacidada loo celinaya safaradan iyo kala maqnaanshahani safarkan yaa dalbaday mar bayna gabadhu ninka dantiisana ku maqnaan kartaa waxna ayna yeelanaynin hadday dalabka iyadu ka yimaado oo tirahda hawsha anaa soo qaban markay hawsha anaa soo qaban leedahay kadaa uu yidhahda may ilaa wilaa anaa soo qaban ay tiraahdo safartan dantiisa ha soo qabata laakiin dan ay lahayd baa ugu dhex jirtay maxay u qamaamaysay waxay u qamaamaysay baa meesha ku jira saas darteed markaa dalabka iyadu hadduu ka yimaado ama danteeda ay ku maqnayd beddel ma laha haddii dantiisa ka timid isaguna ka dalbaday intii ay maqnayd way ku leedahay deenisaa ku maqan way bilahi towfiiq sheekh su-aashan waxay leedahay kale ninkayga waxay leedahay ayaan furiin ka dalbaday sababtana waxay ahayd kala fogaansho aan kala fogaanay dartiis ayaan uga dalbaday isagana wuxuu yidhi haddaa rabto inaan ku furo meherkaagii ayaad isku furanaysaa marka waan ka yeelay kadibna wuxuu yidhi wax kale igu sii dar lacag kale kusii dar meherkii waan ka ogolaaday marka wuxuu yidhi waan kugu lahaani lacagtaas kale midda meherka mugay intii dheeriga ahayd waa kugu lahaan doonaa waana kugu lahaan buu ku yidhi xataa haddaan dhinto wuuna dhintay lacagtiina ma saynin anigana markaas ma haynin maxaan sameeyaa idma furay ha sidii ma ku furay idma soo furay sidii ku furay ha alxamdu lilah waxba laguma laha gabadha hadday masaladu masalatu lkhulci weeye khulc iyo madax furashana wixii uu siiyey ama mehera ama hanti kale uu u siiyey ka badan ma dalban karo haddii intay joogtay dunideeda furitaankii ay shardi madaxeeda ku furato uu ka qaatayna dulmi bay ahayd inuu ka qaato haddii aynan bixininna laguma laha gabadha xoolahaas wax lagu leeyahay ma aha wixii ka badan meherkeedii iyo wax isagu siiyey haddaynan ahayn hadday ahayd xoolo isagu uu siiyey waxaan kale lagu jaangooyeyna dee waa lagu leeyahay dadkii dhexalkiisa lahaabay siin wabilahi towfiiq su-aasha kale sheekh waxay leedahay salaada markaan tukado waswaas badan baan dareemaa ilaa aan ku celiyo 4 5 6 mar aan ku celiyo salaada habeenkiina waxaan ku riyoodaa salaadii aan maanta dhan tukanay inaan iga ansaxinba maxaan sameeyaa alxamdu lilah waxaan isleeyahay qayb badan oo ka mida qofkan iyo dadka lamidka waswaaska iyagaa isu keena haddaad shaqo maalin walba qabato khabiir xariifaad ku noqon shaqadaad maalin walba qabato ama maalintii intaasoo jeer aad qabato waxaad ku noqon xariif baad ku noqon aada khabiir ugu ah waswaaska haddaad shaqo ka dhigato inaad daba gasho kanna muxuu ahaa kanna ku celi aad daba gasho khabiir darajada ugu sarreeya muwaswisiintaad noqon PhD iyo professornimaad ku qaadan waswaas waxaadan raacraacin eeda dan ka gelinna faraqa kuguma xirto waswaas
ilaahay waa laga magangalaa laakiin dawadiisa haddana adoo magangala ilaah barya ugu fiican waa wixii inaadan dan ka gelin haddii maanta uu ku yidhaahdo amaadan faatixada akhriyin oo tiraada ku celi mar labaad buu kugu soo noqon amaadan akhriyin ku celi amaadan akhriyin ku celi khabiir ku celcelin baad noqon maanta o dhan wax waswaasoo dhan u dhaga nuglaada amaadan akhriyin waa laga socdaa 2-3 jeer markaad iska dhaga tirto ku celcelintii uu kaa dayn shaydaanka iyo waswaaskiisa wuxuu leeyahay kan baraka malo waa dhaga adag yahay iska daa waqtiga isaga dhuminino mid dhaga nugul raadso dadow dhaga nugeylka ka daaya waswaaska salaadii mar haddaad tukato ha ku celinin 100 jeer hadduu kugu akhriya ha yeelin salaad labaad tuka ha ku celinin usbuuc haddaad saa ku wado waswaaska 90% waa isdeenaysaan 90% waxaad khabiir ku noqon waswaas inaadan waxba ka soo qaadin markaad khabiir ku noqotana naftu waxay la qabsan inaadan waxba ka soo qaadin laakiin nafta haddii waswaas la baro waswaaska way baran marka dambana xariif bay ku noqon marka dambana maalinba qaab cusub isagoo ah iyo nooc cusub isagoo ah iyagoo isagoo meel hoosan la gaari karin ma shalay laga soo fagay bay kuu keeni waxaad maantoo dhan akhriyayso inaadan ku khaldamin ama macno cusub iyo wax cusub aad ka dhuuxday noqon waswaas cusub baad dhuuxaysan marka bahalkaa ka daaya khayr allah idin siiyo ilaahay ka magan gala shaydaanka iska naara horeyna uga socda wabillahi towfiiq sheekh su-aasha kale waxay leedahay ninkayga oo 2 caruur u dhalay ayaa i furay meeshii ugu furana markhaati baa joogay kadib wuxuu soo istaagay rajactu baan yiri aan ku soo ceshtay markhaatina ma keenin marka ilaa iyo maanta arrintaas ayuu isaga taagan yahay anigana tii horan baa ay xisaabsan marka arrintaas maxaan ka samayn karnaa alxamdulilah masale fatwa ma ahe masale qadaa u baahan weeye qofkani wuxuu u baahan yahay isaga iyo qofkii wax ka dhexeeyeen in golo culimo la tago oo labadaba la dhagaysto oo su'aalaha lama maarmaanka ah la wada weydiiyo markaa kadibna intay xukun dhiibtaan xukun sharci ah soo baxo reer baa tihiin iyo ma tihiin masale xukun u baahan weeye masale guud markay tahay laga jawaabi karaa ama ayna dad kala khusaynin oo in la kala gooyo u baahan dacwo hadday sidan oo kale tahay labada dhinac in la dhagaysto goormuu soo ceshaday maxaa caddaynaya ujeeddadu maxay ahayd markhaati ma lahaya wax badan baa in la xaqiijiya u baahan wixii hadda lagu yidhaahdana qof kaluu saamaynayaa qofkuu saamaynayo oon la dhagaysaninna asay soomaalidu yidhaahdeen qof ishu ka lalmata hadduu kuu yimaado waxba ha u garaabin garta ha siin waxaa laga yaabaa mid calooshu ka lalmato oo soo kici waayey buu ka soo tegey isaga ilbay ahayd oo laguhu ku soconaye miduu caloosha kala jaray inuu ka soo tegey baa dhici karta oo hadhow intaad tiraa war ninkan waa la dulmiya saa maxaa loogu galay daalim baa wax yeelay aabad u tagtaa mid calooshu bannaanka taalloo kaba sii daran oo isagu dhib ka weyn uu geystay dhibka loo geystay baa dhici karta macnaha waxaa looga jeedaa siduu kugu warramay inayn ahayn baa dhici karta oo war badan dib ka soo baxo saas darteed xakam sameeya ama qaadiga u taga ama culummo xakam isula taga xukun dhiibta xogtana bixiya su-aalahana ka jawaab marka kadib xukun haladiin siiyo billahi towfiiq jazaak allah khayr sheekh labada su-aal oo dambeysay ayaan ka jawaabayna oo gaagaaban su-aasha u horeyso hooyaday oo dhimatay sawirkeeda ma haysan karaa midda labaadna gabar baa waxay leedahay xilligii salaadoo taagan oona weli laakiin aan tukanin waqtigeedan uu gale hadduu dhiig ugu imaado salaadaas ma soo celinaya alxamdulilah masaladan dambe baa baahideeda waxaan filayaa ka camalisan tahay oo looga baahi badan yahay gabadhii waqtiga dhiigu ku dhacay iyo waqtiga salaadu soo galay hadduu u dhaxeeyey dabcan salaadaha kala duwan markaan ka soo qaadna salaad subax oo kale hadduu waqti salaad la weysaysto oo la tukada uu u dhaxeeyey salaadda qadaheeda waa lagu leeyahay waayo waajibkiina way ku waajibtay wayna gudan kartay waajibkaas haddii uunan kaba soo wareegin waqti salaad la tukan karo oo tahaaradii iyo salaaddii uusan ku fillaynna laguma laha laa yukallifu allahu nafsan illaa wuscaha waa salaad subax salaadaha kale oo duhurka iyo casarkii ah maqribka iyo cishaha hadday midda hore oo duhur iyo maqriba ay arrintu tahay salaadda waa lagu leeyahayoo salaaduhu way israacaan
duhurka iyo casarku way israacaan oo duhurka iyo casarku wakti wadaagay leeyihiin duhurkana waktigiisa waa loo xisaabaa casarka waase hadday waktiga qaybihiisa dambe ay yimaadaan haddiise awalka waktiga saadu u soo galay wakti la tukan karaba aynan ahayn salaadaha midna laguma laha ma tukan kartay salaadan iyo salaada kale waktigeedii ilaa casar aakhirkii casarka horraantiisa hadday tahay waktigii duhurku shabah ku leeyahay oo ku jira meel cad ay duhur iyo casar ku kala baxaan oo caad loo kala garan karana ma jiro qayb duhurna ah casarna ah baa jirta qayb maqribna ah cishana ah baa jirta oo kala baxoodu nabigu labadii maalmood ee salaadaha uu tukaday shalay duhurkii waktigu tukaday buu maanta waktiga casrku tukaday saxaabadu leeyihin ilaa aakhirihi marka waxaan rabaa inay afartaas salaadood isdhex baa ka dhexeeye hadday bilow salaad tahay oo wakti la tukan kara aadan ka soo gaarinna laguma laha haddii kalena dee salaadahan kale waa lagu yeelanaya aakhirkeedii ay gaadho bilahi towfiiq su-aasha labaad maxayd sawirka ma haysan karaa sawirka ma la geli karaa ma bannaan yahay bay ku salaysanta sawiradan photogaraafkii ama digital ha noqdaan ama kuwan biniin kolaha le ha noqdaane ee photographiska ah ma bannaan yihiin mise ma bannaana way bannaan yihiin haddii la yidhahda wax bannaan waa la geli karaa waan la haysan karaa wey haddii ma bannaano la yidhaahdana dee haysigiisaa marka haddaan maslaxad ku jirin dhibka imanayaayo haysigiisaa dembi noqonaya aniga waxay la raajax inay bannaan tahay gelitaanka wixii haddaan cawraadiyo la bannaynaynin haysiguna uusan dhibaato lahayn bilahi towfiiq جزاكم الله خير شيخ aad buu mahadsan yahay dhammaan waxaa jiray su-aalo fara badan waraaqihii su-aalaha waxaa la socday codsi fara badan oo duca ay ku dalbanayeen dad xanuunsan iyo dad duruuf kala duwan ay haysatay oo u baahan in la duceeyo waxaa ka mid ahaa dadkaas ducada dalbanayay wiilkii yaraa ee su-aalaha ii keenaya wuxuu codsanaya ilaahay inuu qur-aanka u fududeeyo isaga iyo walaalihiis iyo saaxiibadiis ayuu codsanayaan marka in loo duceeyo baahin sheekh baarak allah fiik بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إلى سبحانه وتعالى خيرك الله هنا وفجيه إيمانك الله هنا قصقه خاتمنا الله هنا صوبيه إلى سبحانه وتعالى أنت دبك الله كقاضه أنت باهنا الله ديقه أنت شرنا الله عافيه أنت مقنا الله سونا بدعليه أنت دنسنا الله سوى حنونيه إلى سبحانه وتعالى أنت كلام مقنا نبض الله يسوق كانه وبدك يلمها الله هنا صوبيه aqalladii guryahana allah inoo wanaajiyo intaan haynina guriga ubadiyo ilmo wanaagsan allah siiyo ilaa subhanahu wa ta'ala muslimiinta dhibka iyo dulliga allah ka qaado dhibka iyo dulliga muslimiinta allah ka qaado wixii ilaahayna baray allah inagu anfaco wax nacfilo akhriya dunyana anfacana cilmigana allah ka dhigo dembigana allah ina dhaafo dembigana allah dhaafo naartana allah inaga badbaadiyo jannada allah ina geeyo khayrka kuwiisu kaalmaystan ilaah inaga dhigo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك